tani waxay ahayd daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ay kaamirada duubtay maxkamadda gudaheeda. waxay ahayd daqiiqado aan la iloobi doonin oo dadkii ku sugnaa maxkamadda gudaheeda ka wada oysiisay. waxay ahayd daqiiqado ay hareeyeen iscafin iyo oohin. sideen u saamixi karnaa qof dilaa ah, weliba qof dilay wiilkaaga curadka ah? cabdulmuncim jidmuud waa saaxiibka cafiska qadyadan aadka u qabsatay Maraykanka. waxa uu sameeyey wax dhif iyo naadir ku ah Maraykanka. waxa uu cafiyey oo uu xabadka geliyey ninkii dilay wiilkiisa. jidmuud waxa uu astaan u noqday kuwa sawirka qurxan ee dhabta ah ka bixiya diinta Islaamka ee ku dhisan isa saamixidda iyo naxariista. meeqa qof ayaa ku soo islaamtay mowqifkaas wanaagsan oo kale, isla markaasna gartay diinta Islaamka dhabta ah ee ku dhisan iscafinta iyo naxariista. jidmuud waxa uu matalay diinta Islaamka ee saxda ah. tani waa isa saamixidda Islaamka. waxa uu ka dhabeeyey in dacwada ficilka ay ka dheerayso dacwada hadalka ku kooban. haddaba nasoowada aan idinkaga sheekeeyo qisada aabbahan muslimka ah ee fasiraadda qurxan ka bixiyey diinta Islaamka iyo wixii maalinkaas ka dhacay gudaha maxkamadda la soo taagay ninkii dilay wiilkiisa. balse intaan u gudagelin faahfaahinta, haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub, sabskrayb saar, gambaleelkana furo si aad u heshid muuqaaladeen ugu dambeeyey. mahadsanid. cabdulmuncim jidmuud waa macallim Amerikaan muslim ah. waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa dalka Thailand. waxa uu Maraykanka yimid isagoo dhallinyaro ah si uu wax uga barto. waxa uu guursaday gabar ay saaxiibo ahaayeen kadib markay soo muslimtay. waxay u dhashay 5 carruur ah. sanado badan ayuu cabdulmuncim ka shaqaynayay iskool islaami ah oo Maraykanka ku yaal. waxa uuna had iyo jeer ku dadaali jiray in uu ardaydiisa si fiican u baro macnaha diinta Islaamka. laakiin waxaa dhacday qadartii Eebbe, waxaana uu waayey naf ka mid ah nafafkii qaaliga ku ahaa. waxa uu ahaa wiilkiisii ugu weynaa ee curadka. maalin maalmahaas ka mid ah, gaar ahaan sanadkii 2015, muncim waxa uu la kulmay dhacdo murugo leh. koox tuuga ah ayaa weerartay wiilkiisa weyn. salaaxudiin jidmuud waxa uu ahaa wiil dhallinyaro ah. waxa ay shaqadiis ahayd geynta biisaha. waxa uu naftiisa waayey markii ay koox tuuga ah ku soo weerareen guri uu ka deganaa magaalada Kentucky. waxaa lagu dhuftay dhowr toorey, sidaas ayuuna ku dhintay. cabdulmuncim jidmuud maalinkaas waxay u ahayd maalin madow oo murugo ah. waxaa laga dilay curadkiisa uu aad ku jeclaa. waxaa taas ka sii darnayd oo uu sii murugooday markii xaaskiisa ay dhimatay, naxdinta ay ka qaaday geerida wiilkeeda. waxa uu sidaas ku waayey 2 naf oo qaali ku ah, waa wiilkiisa curadka ahaa iyo xaaskiisii. balse aabbahan samirka badan waxaa qalbigiisa dejiyey oo uu xanuunka isku dhaafiyey akhrinta qur-aanka kariimka. halkaas ayuuna ku dareemay in uu ku raali noqdo qadarta Eebbe. muddo kooban kadib waxaa gacanta lagu soo dhigay mujrimkii dilay wiilkiisa, waxaana jidmuud loogu yeeray in uu ka soo qayb galo maxkamadaynta gacankudhiiglaha dilay wiilkiisa. jidmuud waxa uu sheegay in intii ay socotay maxkamadaynta ay naftiisa isweydiinaysay su'aalo badan iyo go'aanka uu qaadan lahaa. waxay ahayd daqiiqado igu adag. waxaan isweydiinayey mowqifka aan qaadan lahaa. waxaan isweydiinayey maxaan sameeyaa, sideen uga falceliyaa anigoo ilaalinaya qiyamka diintayda Islaamka, ayuu yidhi jidmuud. iyadoo ay ahayd waqti aad u adag iyo maalmo u madow, haddana aabbahan waxa uu go'aansaday in uu muujiyo astaamaha dhabta ee diinta Islaamka ee ku dhisan iscafinta iyo naxariista. maalinkaas oo ahayd maalin Talaado ah, cabdulmuncim waxa uu soo fadhiistay maxkamadda Kentucky. dilka wiilkiisa waxaa ka soo wareegtay 2 sano. subaxaas dhammaan wargeysyada Maraykanka ciwaanadooda ugu horreeya waxaa qabsaday ficilka uu sameeyey jidmuud. sidoo kale muuqaalkii ay kaamirooyinka soo qabteen ee uu ku cafiyey dilaagii dilay wiilkiisa ayaa si waali ah ugu faafay baraha bulshada. waxaa mar qurayaabay oo indhaha taagay, ilmana soo dhaaftay dadkii maxkamadda fadhiyey iyo qaadiyaasha, iyagoo la yaaban in shakhsi wiilkiisa la dilay uu cafiyo, weliba habsiiyo mujrimkii wiilkiisa dilay, sidoo kalena sabab u noqday geerida xaaskiisa. dilaagii ayaa soo istaagay, wuxuu salaamay aabbihii uu wiilkiisa dilay. kadibna jidmuud ayaa istaagay, wuxuuna xabadka geliyey kii wiilkiisa dilay. alla maxay tahay wax la yaab leh, dhifna ay tahay in ay dhacdo. haddaba muxuu jidmuud dhagta ugu sheegay markii uu habsiinayey mujrimka wiilkiisa dilay? waxa uu ku yidhi sida tan: markii aad xabsiga ka soo baxdo, sameey wax wanaagsan, ilaahay waa uu kuu dembi dhaafi doonaa. waxaan ka xanaaqsanahay shayddaanka kaa lumiyey waddada wanaagsan. kuma eedaynayo adiga, kumana xanaaqsani. waan ku saamaxay, waan iska iloobay wax walbaad ku samaysay wiilkayga Salaaxudiin.
anigoo wakiil ka ah waalidkayga xaaskayga ayaan ku saamaxay. dhanka kale dilaaga ayaa awoodi waayey in uu xakameeyo ilintiisa, waxa uuna codsaday in ay saamaxaan qoyskii Salaaxudiin, waxaana uu Ilaahay ka codsaday in uu saamaxo. kaamirooyinka ayaa soo duubay daqiiqadahan saamaynta leh iyo wixii subaxaas ka dhacay maxkamadda gudaheeda. sidoo kale qaadiga maxkamadda oo ahayd haweeney ayaad muuqaalkan ku arki kartaa iyadoo ilmeynaysa. cabdulmuncim ayaa isagoo ku sugan maxkamadda yiri sida tan: islaamku wuxuuna baray in Ilaahay uusan cafin dembiga qof naga mid ah ilaa marka hore uu cafiyo qofka uu dembigaas ka galay. sidoo kale waxa uu sheegay in qadiyadda dilka wiilkiisa ay ahayd imtixaan dhab ah, weliba lagu imtixaanay wixii uu ku beerayay ardaydii uu waxbarayay. sidoo kale wuxuu sheegay in diinta islaamka ay bartay in iscafinta iyo isku naxariisashada ay aas-aas u tahay, taasna ma ahan mid lagu beeray shucuubta Maraykanka ee aan muslimka ahayn. inkastoo uu isagu shakhsi ahaan cafiyey dilaagii wiilkiisa dilay, haddana maxkamadda ayaa diiday maadaama qaanuunka Maraykanka aysan ku qornayn iscafinta, balse waxaa laga khafiifiyey xukunkii uu mudnaa, waxaana lagu xukumay 31 sano oo xabsi ah. gabagabadii cabdulmuncim waxa uu sheegay tallaabada uu qaaday in uu uga dayday nebiga salawaatullaahi calayhi wasalam oo iska cafin jiray gaalada, taas beddelkeedana ugu yeeri jiray in ay qaataan diinta islaamka. cabdulmuncim waxa uu saamaxay kii dilay wiilkiisa, isagoo ku dayanaya qaatimul anbiyaa'i wal mursaliin sayidina Muxamed calayhi salaatu wasalaam, waxa uuna ajir iyo dembi dhaaf ka dalbaday Ilaahay.